kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddaad nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. qiimaha gabdhaheena ay leeyihiin waa mid dareemi karaan wiilasha marka ay gabdha la'aan noqdaan oo aan hooyadood gabar dhalin. taas ka soo waxaa jirta in shaqo ahaan lagu dhibo gabdhaha markii ay codsadaan waxbarashada waa lagu rikaateeyaa natiijada imtixaanka. haddana waxaasoo idil waxa u dheer inay af libaax u galaan rag aan damiir u lahayn dhibaataynta gabdhahana caan ku ah mararka qaarkood. gabar waa insaaniyad rabbi uu abuuray kuwa ugu qalbi jilcan dhiig iyo dheecaan kuu huri kartaa aqoon iyo inaysan ku garanayn intuba. warbixintan ayaan ku soo gudbinaynaa inay jiraan dadyow qadarin iyo qiimaha gabdhuhu leeyihiin ku maamuusa meel ka mid ah dunida dhacdooyinka arladana muhiim u noqon karta. bal qiyaasa adiguba gabar haddii ay dhalato tuulo ka mid ah waddanka Hindiya waxay u dabaaldegaan si ka baxsan marka wiil uu dhasho qaabkii loogu dabaaldegi lahaa. waxaa loo beeraa gabadha 100 geed in ka badan. sanadkii 2006 laga soo bilaabo tuulada Biblantry ee gudaha dalka Hindiya waxaa lagu beeray kumanaan geeda. sanad walbana waxaa la sheegaa in geeda badan oo gabadhaas magaceeda lagu xardho ay tahay mid lagu muujiyo. magaciigu waa Shyam Sundar Balwale. tuulada anaa hogaamiye u ah arrinteeda oo dhanna mas'uul ka ah. tusaale ahaan sida aan biyaha u ilaashanayno, geedaha u beeranayno iyo habka aan gabdhaha uga difaacayno kuwa dhiigyo cabkay kufsiga caanka ku noqday. gudaha Hindiya ayaa ka mid ah meelaha ugu badan caalamkana kaalinta koobaad ayaaba ay uga jiraan kufsiga iyo dhibaataynta gabdhaha lagula dhaqmo. dhaqankani waxa uu soo bilowday markii ay gabadhaydu dhimatay ayaa waxa aan u beernay geed aan ku xasuusanayno ayay tiri. waxay ahayd maalintii aan ogaanay qiimaha dhabta ah ee ay gabdhuhu nolosheenna u leedahay. qoyska gabadha dhalay ayaa geedaha loo beero xanaaneeya. gabadhuna sanad walba geedaha waxay u soo goysaa qardhaas ay ugu ballanqaadayso in ay waraabin doonto oo ay ilaalin doonto. markii si loo eego arlada iyo deegaanka waa u farxad oo indha soo jiidasho iyo dhirtu waa ay u fiican tahay. deganaan ayaa qofka qalbigiisa uu ku xasilaa. waxaana ay doonayaan inay fariintan ka bilaabatay tuuladooda Biblantry la yiraahdo dalka Hindiya ay gaarto daafaha kala duwan ee dunida. waxaan doonaynaa in gabdhuhu ay naftooda ku tiirsanaadaan dhinac kasta. waxa uu yoolkeenu yahay in gabdhuhu ay helaan waxbarashada ugu wanaagsan isla markaana aan ku garabsiino in ay isku filnaadaan oo aanay cid kale garab uga baahan. Soomaaliya marka la joogo gabdhuhu waxa ay 60% yihiin kuwa aan helin daryeelka iyo waliba taageerada ay waalidiinta u sameeyaan marka wiilasha loo fiiriyo oo wax kasta wiilasha ayaa laga hormariyaa. tiyo ay gabadhu shaqada ugu badan guriga iyadoo ay qabato isla markaana waxbarashada heerka sare lagama gaarsiiyo lagumana dadaalo. bal adiguba sidee ku saameynaysaa warbixintan? maxayse kula tahay gabdhaheennu in qiimaha ay leeyihiin aan ugu abaalgudi karno? fariintaada bal noogu reeb kommentiga qaybta hoose ee muuqaalkan. haddaad ka heshay muuqaalka like noo saar, subscribe dheh haddii aad nagu cusub tahay. haddaad hore noola joogtana mahadsanid ayaan ku leenahay. muuqaalka sida aad u daawatana waan kaaga mahadcelinaynaa. daawadayla intaasaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. intaan muuqaalkan mid la mid isku arki doonno sidaas iyo nabadgelyo.